Bismillahirrahmanirrahim. Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena qodobada ugu waaweyn ee aan daawadayaal ku soo qaadan doonana barnaamijkeena waxaa ka mid noqonaya mid ka mid ah kuraastii lagu doortay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa natiijadiisa la hakiyay. Dacwad ayaa laga gudbiyay miyuu kursigaasi ka mid yahay kuraastii ay ku soo kala baxeen Khadiija Maxamed Diiriye iyo sidoo kaleba Xildhibaan Yuusuf Kabaale oo cabasho fara badan ay dul hoganaysay. Halkan ayaa daawadayaal ku soo qaadan doona oo aan idinku sharaxi doona falaqan ayaana gelin doona madaxweynihii hore ee dalka Farmaajo oo marxalad hubanti la'aan geliya siyaasadda Soomaaliya. Sidoo kale daawadayaal waan soo qaadan doona hayeeshee inta aanan guda gelin waxaan daawaday ka dalbanaya oo ka codsanaya in muuqaalkan like saarto la wadaagta asxaabtaada adigoo subscribe inoo saariyay channelka oo furan ee gambalaalka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. sidoo kale daawaday muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag. markaana daawaday waxaad ku soo dhawaataa qodobadii markaa soo daawatay oo intaasi ka sii faahfaahsan anigoo ku bilaabaya. waxay cabasho dul hoganaysa qaar ka tirsan kuraastii lagu doortay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle. kuraastii ay ku soo kala baxeen Khadiija Maxamed Diiriye iyo sidoo kaleba Xildhibaan Yuusuf Kabaale ayaa ka mid ah kuraasta wajahaya culeysyada. cabashooyin fara badan ayaa laga soo gudbinaya. waxa ay sheegayaan musharaxiintii u taagnaa kursigaasi in ay ku tartamaan, weliba waxa ay tibaaxayaan in ay cabasho u gudbin doonaan kursigaasi markaasi ka dhana guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee Soomaaliya. cabashadan haddii ay gudbiyaan waxa ay noqon doontaa in kursigaasi la hakiyo ama la fasaxo. taasi waa mid u taala guddiga xalinta khilaafaadka ayay leeyihiin dadka taxliiliya siyaasadda. si walbay ahaataba lama oga sida laga yeelayo kuraastan, waxaana la fahamsan yahay in labaduba uu kuraastaasi ama labada musharaxba ee Khadiija Maxamed Diiriye iyo sidoo kaleba Yuusuf Kabaale uu kuraastaasi u xiray madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guulaabe. waa ay adag tahay in kuraastaasi dib loo soo celiyo doorashadoodu ayay leeyihiin falaqeeyayaasha siyaasadda. si walbay ahaataba wax kasta waa suurtagal oo waa maangal ayay sidoo kale leeyihiin dadka taxliiliya siyaasadda. waana macquul gal in kuraastaasi doorashadooda ama natiijadooda la hakiyo oo dib loo dhigo ayay leeyihiin. sidoo kale madaxweynihii hore ee dalka Farmaajo ayaa lagu eedeynaya boobka ka soconaya saddexda maamul goboleed ee Galmudug, Koonfur Galbeed iyo sidoo kaleba Hirshabelle oo doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dhawaan guda gashay ayaa waxa iyadu noqonaysaa maamulkii ugu dambeeyay ee doorashadan qabta isla markaana ku bilaaba qaab boob ah. waxaa jirta in Barlin Bin oo la tartamaysay Khadiija Maxamed Diiriye ee warbaahinta ka soo muuqatay iyadoo sheegaysa in kursigaasi loo diiday tartankiisa, weliba guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Hirshabelle ay ku xireen in ay keensato ID card muujinaya in ay u dhalatay beesha ay kursigeeda u tartamayso ee Yaxar. arrintaasi waxaa soo dusiyay oo markaasi banaanka keena Khadiija Maxamed Diiriye oo ololo doorasho oo xoogan ka waday magaalada caasimadda Muqdisho iyo sidoo kaleba magaalada Jowhar. Khadiija Diiriye ayaa dhowr mar waxa ay sheegtay in Barlin Bin aysan u dhalan beesha Yaxar. arrintaasi ayaa shaki gelisay guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Hirshabelle ayaa la leeyahay, balse cudurdaar waa ay u weysay arrintaasi. Barlin Bin waxa ayna ku dhaleeceysay guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed Hirshabelle iyo madaxweynahaba in aysan maamul goboleedka Hirshabelle ka qabanin doorasho xor iyo xalaal ah, cadaalad ah, hufan, weliba daafuran oo ay u dhan yihiin dhammaan saamilada siyaasadeed ee Soomaaliya, mucaaradka iyo sidoo kaleba muxaafadka. waxa ayna sheegaysaa in qaar la siinayo kuraasta, sidoo kalena qaar ka tirsan xildhibaanada loo diidayo in ayba u tartamaan kuraasta ay ku leeyihiin baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. doorashada Soomaaliya ayaa waxaa dul hoganaya culeysyo siyaasadeed oo xoogan. cabashooyin ayaa iska soo daba dhacaya. calaamad su'aal xoogan ayaa saaran oo la rabo in calaamad su'aalkaasi uu ka qaado ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Rooble. isaga ayaa eed walba oo doorashada ku dhacaysa ayaa la leeyahay maadaama 1 May ee sanadkii hore 2021 uu ku wareejiyay madaxweynihii hore ee dalka Farmaajo
arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kaleba amnigooda. Farmaajo ayaa hadda waxa uu yahay isagu mas'uul ka madax bannaan doorashada qaabka ay u dhaceyso iyo sidoo kaleba qaabka ay u socoto. Farmaajo waxaa lagu eedeynayaa in uu marxalad hubanti la'aan ah oo siyaasadeed uu geliyo gudaha dalka Soomaaliya. Farmaajo ayaa hod dheer ku riday siyaasadda Soomaaliya, waana qofka u sababta xaaladda cakiran ee uu maanta dalku taagan yahay. Khubarada ka faalooda arrimaha siyaasadda ayaa sheegaya in hoggaanka waqtigiisu dhammaaday uu sabab u yahay xaaladda cakiran ee uu maanta dalka taagan yahay, maadaama uu burburiyey hanaankii iyo qiyamkii ay lahayd dowladnimada. Jahwareerka dhanka siyaasadda ee dal walba ku dhaca ayaa waxaa keena laba arrimood oo kala ah: daruuf rabbaani ah oo aysan dadku waxba ka qaban karin, iyo mid ay abuuraan siyaasiyiinta bulshadaasi hogaamisa. Waxaana tan Soomaaliya ee iminka ku jirto lagu sifeeyey mid markaasi ka dhalatay hoggaan xumidii uu dalku dhaxlay 8 February ee sanadkii 2017, markaas oo Farmaajo lagu aaminay mas'uuliyad uusan qaadi karin. Muddadii uu xukunka ku fadhiyey si cad ayuu uga soo horjeestay in siyaasadda dalka ay ku socoto hab degan, isagoo ka doorbiday in uu siyaasadda waddanka geliyo marxalad hubanti la'aan ah, sida iminka markaasi sheegayaan dadka taxliiliya siyaasadda dalka Soomaaliya. Waana sida iminka loo wada jeedo. Farmaajo wuxuu ku guuldareystay in uu dalka gaarsiiyo doorasho lagu wada markaasi qanacsan yahay oo lagu kala awood roonaado, wuxuuna qaab sharci darro ah ugu fadhiyaa kursiga ugu sarreeya dalka, isagoo doonaya in Soomaaliya uu mar kale geliyo dagaal sokeeye. Madaxweynaha muddaxileedkiisu uu dhammaaday ee Soomaaliya ayay khubaradu ku tilmaameen nin aan fahamsanayn duruufaha adag ee laga soo maray dib u dhiska dalka, waana nin damqinaya boogihii laga dawoobay, iyagoo tusaale u soo qaatay waxa uu ka wado beledweyne. Farmaajo ayaa weli u muuqda mid damacsan in uu geysto in ka badan gaboodfalladii uu hore ugu kacay, wuxuuna hadda ku hoolan yahay boobka doorashada iyo kala qaybinta beelaha Soomaaliyeed. Waana arrin fajac ku abuurtay khubarada falaqeeya arrimaha siyaasadda. Cabsi weyn ayay khubaradu ka muujiyeen xukunkiisa kadib in dalka uu markaasi baaqi ku ahaado dhaqan siyaasadeedkii guracnaa ee laga bartay, taas oo mar kale caqabad ku noqon karta aayaha dadka Soomaaliyeed. Madaxweynihii hore ee dalka Farmaajo ayaa lagu eedeynayaa in uu ciidamo fara badan oo isugu jira Gorgor iyo Haramcad ku daabulayo garoonka Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Halkaasi ayaa la doonayaa in lagu qabto doorashada golaha shacabka. Waa 25 kursi oo taala halkaasi. Waa la ogaa ayay leeyihiin dadka taxliiliya siyaasadda wixii uu Farmaajo ka geystay magaalada Baydhabo. Sidoo kale waa la ogaa wixii uu ka geystay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Waxaana inta ugu badan doorashooyinkii dalka ka dhacay waa dhanka maamul goboleedyada markii la eego 4 sano ee xukunka iyo Farmaajo ay ahaayeen kuwa dhiig ku daatay isla markaana loo adeegsaday ciidamo hubaysan, isagoo ka doorbiday dantiisa gaarka ah danta guud ee qarannimada Soomaaliya. Shakhsiyaad uu isagu dantiisa ku fushinayo ayuu waxa uu geeyay maamul goboleedyada dalka oo xubin ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. Madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaa iyagu waxay ahaayeen kuwa kaliya ee Farmaajo ku cadaadiyay in uusan markaasi soo faragelin arrimahooda siyaasadda gudaha, waxaana ay inta ugu badanba ay cilaaqaadka u jareen madaxweynihii hore ee dalka Farmaajo. Hadda Farmaajo iyo sidoo kale kooxdiisa ololaha doorashada waxay doonayaan in ay boobaan kuraasta golaha shacabka ee taala 3 maamul goboleed ee uu isagu xukumo, waa Galmudug, Koonfur Galbeed iyo sidoo kaleba Hirshabeelle. Doorashada ka soconaysa magaalada Jowhar ayaa waxay ku bilaabatay boob. Magaalada Beledweyne doorashada ka dhacaysa ayaa sidoo kale la filayaa in ay la mid noqoto doorashooyinkii kale ee dalka ka dhacay oo uu hiilinayay dhanka iyo Farmaajo. Faad Yaasiin Xaaji Daahir, la taliyihiisa amniga qaranka, ayaa waxaa markaasi Beledweyne ka yaala kursi xildhibaan. Waxa uu doonayaa xasaanad, waa xasaanadoon ayay leeyihiin dadka falaqeeya siyaasadda, maadaama uu ku eedeysan yahay kiiska dilka ee Ekraan Tahliil Faarax oo ahayd gabar ka tirsaneyd hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA, taas oo la waayay muuqeeda 26 Juun sanadkii hore 2021, markaas oo laga watay hoygeeda, weliba lagu qaaday gaari uu lahaa mid ka mid ah xubnihii ka shaqeynayay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA.
Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa waxaa laga qaaday xilkii agaasimaha NISA. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa arrintaasi waxa uu ka sameeyay arrin la yaab leh maadaama uu xigsaday dhanka iyo qoyska Ikraan Tahliil Faarax weliba uu ka soo horjeestay Fahad iyo Farmaajo xukunkooda. Iminka waxa uu doonayaa Rooble in uu qabto doorasho hufan oo cadaalad ah, xor iyo xalaal ah, daahfuran oo u dhan yihiin saamilayda siyaasadeed ee Soomaaliya weliba aanan u janjeerin dhanka iyo Farmaajo. Lama oga sida ay doorashadu noqon doonto.